بسم الله الرحمن الرحيم ومركله iyo muuqaal cusub waxaan ka hadlaynaa maanta joojinta briiska ee dalka Hindiya ay ku sameeyeen in wadankooda aan briiska gudaha ay ku beertaan uusan ka bixi karin waxyaabay u fiiriyaan waxa kamid ah in dadkoodii batay hadana aysan u haynin cuntooyin sida daraadeed ay sameeyeen wixii dheeraadka ay banaanka u dhoofi jireen inay joojiyeen oo ka dhigeen in local bis marka sababta localka looga dhigay waxa waaye dadka Hindiya oo batay deetana waxa waaye wax soo saarkii adduunka hadda oo yaraaday waxyaabihi kale ay banaanka dheeraad ka heli jireenna ay sameeyeen ku sameeyeen joojin marka waxay sameeyeen waxay dhahan briiskanaga totally ba kama badna wadankanaga ama dadka wadankanaga ku nool waxay cun lahayn kama badna marka waxay sameeyeen joojin hadda wadanka Hindiya laga dhoofi karo ama dawladda Hindiya waxa ay diiday in laga dhoofiyo wadankeeda briiska sadaradeed waxa dib ku qaba wadamadii briiskaas dhoofsan jiray oo Soomaaliya ay kamid tahay briisku anaga Hindiya iyo Bangladesh naga soo gaara iyo China sadaradeed mid kamid ah markuu joogsado waxa qaali noqonaya wadamadii kale waxay fursad u helayaan inay tartankii dadkii tartami jiray mid kamid ah ka baxay markastoo marka tartanka qofi ka baxo waxa Nobel noqonaya ama monopoly noqonaya kuwii kale ku jiray ayaa monopoly dareemay markii monopoly dareeman marka cuntadii lagu qaaliyeena cuntada markii lagu qaaliyeena waxaad noqonaysaa inaad dadkaaga majaaco u dhinto maadaama adiga aad wixii soo saaran oo wixii raba la saaran karo marka waxaan tiirigelinaynaa in la soo saaro qamadiga wadankana waa ka baxaysa briiska ka baxaya galeeydiyo la wada ogyahay ka baxaysa marka in la fududeeyo oo lagu sameeyo galeeydanada horumarin seedskiisa ama seeds qamadi iyo briis inta la keeno lagu sameeyo horumarin kii hadda ka hor oo la keenay wadankana lagu tijaabiyo briiska lagu tijaabiyo horumarin lagu sameeyo waxyaabaha soo dhan hadaan la sameeynin waxay noqonaysaa in wadankanaga lagu maysto waxyaabaha la soo saaro oo cerealska dadku u baahan yihiin marka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh